saxaafadeed aan ku soo bandhigayno waxyaabo shaqooyin ah oo ay qabteen ciidamada Puntland shalay oo taariikhdu ahayd 8 bishii 8aad 2022 ciidamada ammaanku ee gobolka Mudug gaar ahaan degmada Galdogob waxay qabteen qaraxyo uu siday gaari dhayna ah gaarigaas oo ka yimid koonfurta Soomaaliya wuxuu waday qaraxyo qalabka laga sameeyay qaraxyada fiisiyo bateriyo remoodiyo fiilooyin iyo waxyaabo badan qalab dadka khibradda u leh oo aqoonta u leh qaraxyada markii ay arkeen ay sheegeen ilaa 150 qarax in laga sameyn karo taa macnaheedu waxa weeye 150 qarax in la sameeyo waxay noqonaysaa waa gumaad ummadda Soomaaliyeed laga galayo iyo jariimo marka ilaahay mahadiis waxaan ku guuleysanay qaraxa qabashadiisa taasina waxay ka dambeysay kormeero iyo baraarujin ciidamada lagu sameeyay toddobaadkii hore oo xuduudaas Galdogob ilaa iyo aan ku tagnay oo social media laga helayo waxaan uga mahadcelinayaa dhammaan ciidamada gobolka Mudug gaar ahaan degmada Galdogob qabashada ay qabteen waxyaabaha qarxa iyo gawaarida siday mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay waad mahadsantihiin waxaan kale oo la dardaarmayaa guud ahaan ciidamada xuduudda ku teedsan gobolka Mudug aan ku boorinayaa oo kula dardaarmayaa inay baabuurta barmuudada ah oo wadooyinka aan loogu talagelin maraya ayagoo iska dhigaya kuwa canshuurta ka cararaya haddana qaraxyada noocaana soo dhexgelinaya qaraxani waxa la soo dhexgeliyay gaari qudaar wada la soo dhexgeliyay waxaana la mariyay wado aan laamiga ahayn oo ka leexsan oo wado hadii ay ku royaan raf ah taa macnaheedu waxa weeye in meel kasta ay naga soo gali karaan sidaas daraadeed ciidamada waxa horeyna amarkaas u bixiyay saraakiisha ciidamada aniguna hadda waxaan ku boorinayaa ilaalinta xuduudaha Puntland gaar ahaan gobolka Mudug in xoog la saaro ummadda Soomaaliyeed in loo turo lama rabo ummadda Soomaaliyeed oo dad muslimiin ah waxa 150 ka qarax ummadda Soomaaliyeed baa la rabay meel kasta ha joogtay in lagu baabi'iyo ama dawlad deegaanka ha joogto ama Galmudug ha joogto ama Puntland ha joogto ama meel kale ha joogtay waa dad Soomaaliyeed oo muslimiin ah waxa lagu baabi'inayo qof kasta oo Soomaaliya oo rabo ummadda Soomaaliyeed inuu dhibaateeyana in laga qabto waxa waa waajibna saaran kulligeena ummadda muslimiinta ciidamada iyadoo gaar u ahayn aqoonyahanka odayaasha dhalinyarada guud ahaan waajibna saaran weeye inaynu ilaalino deegaanka iyo dalka wax u dhimaya waxa weeye in ummadda lagu gumaada lagu talagalay taasaan kula dardaarmayaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan si gaar ah hadii ay ku roon yahay u bogaadinayaa ashqaastii sida gaarka u qabatay oo aanu si gaar ah u abaalmarin doono hadii la haydmo abaalgud iyo dalacsiin la siin doono waa si gaar ah hadii ay ku roon yahay ugu mahadcelinayaa halkan waxyaabahan iyo wax badan oo ku daba jira meeshay ka yimaadeen meeshay ka waxyaabaha la socday wixii ka soo horeeyay intaba baaritaanka waxa weeye ka hor dhicmayo baaritaanka keeni doona ciidamada ammaanka iyo laamaha baaritaanka bay u taalaa insha Allah taala dadkana waxaan rajaynayaa inay gacan ugu siiyaan mar hadii aan soo bandhignay waxyaabaha noocaan ah ayagana waxa weeye noloshooda iyo badbaadadooda ku jirta